Assalaamu calaykum walaalkay amba walaashay waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Aniguna sabab uma ihi inaan ku soo gaarsiiyo muuqaalkan, balse waxa sabab u ah midda asbaabta oo dhan sababa waana Allah subxaanahu wa ta'aala. Waxaan rajeynayaa inaad wuxuun ka faa'iidi doontid, kadibna aad gaarsiin doontid walaalaha kale ee aad khayrka la jeceshahay. Waa inaad daacadda Alle ku dul noolaataa. Waa inuu waagu kugu bariyaa adiga oo qaadanaya awaamirta Allah sareeyay subxaanahu wa ta'aala, kaas oo adiga ku abuuray adiga oo oon jirin gobolkuna kuugu dhacayo isla sidaasi. Weliba waxa liibaanay qofkii dhinta isaga oo isla sidaasi ah oo daqiiqada ugu dambaysa naftu ka baxayso Allah subxaanahu wa ta'aala xusaya. Xaaladan aan soo sheegay ku sugan ayaana haysta farxadda dhabta ah ee la wada raadinayo. Sidoo kale ogow dadka badankoodu inaanay kuu dareemaynin sida aad adigu dareento oo kale, aysan qalbigaaguna dhaawaca uga ilaalinaynin sidaad adiguba kooga uga ilaaliso oo kale. Ha murugoonin haddii ay dadku kaaga tagaan bartamaha waddada. Ha murugoonin haddii ay waxaasan ahayn kaa sheegaan. Ha murugoon haddii ay ku xasdaan, balse eeg samada mar kaste oo dheh Rabbiyow iigu beddel wax ka khayr badan. Rabbiyow dadkan dad ka khayr badan iigu beddel. Walaalkayow amba walaashayay, ha u sheeganin dadka baahiyahaaga iyo dhibaatadaada. Waxa hubaal ah keliya inay kugu nacayaan, balse Allah subxaanahu wa ta'aala u sheego oo baahidaada xilliga aad sujuudsan tahay. Ha murugoonin hadduu midkood kaa tago, waxaa laga yaabaa inuusan badnayn amba Allah subxaanahu wa ta'aala duco aad marka ducaysatay oo Allah subxaanahu wa ta'aala uu ka aqbalay ducadaas oo ahayd Rabbiyow iga fogeey wixii shar ah. Walaalayaal, markasta aan Ilaahay isku xidhno oo cibaadada iyo salaada aanu ku dadaalno, maxaa yeelay adduunkan waa laga soconayaa. Qof maanta la oran karo qofkaasoo joogaya ma jiro. Nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam oo ugu sharaf badnaa ayaa dunidan ka tagay. Cid maanta ku raacaysa ma jirto. Camalkaaga kaliya ayaa ku raacaya. Dunidan waana ka saxay qaadanaa. Intaan noolnahay cimrigeena iyo waqtigeena wuu iska kooban yahay sidii ummadii kale oo oramani. Markaa walaalayaal, amarka Ilaahay waan adeecnaa iyo awaamirta Ilaahay markasta uu ina farayo, maadaama aan nahay ummad muslimiin. intaas ayaan maanta mawduuceena kusoo gabagabaynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.